ninka isaga ahi ama labadaa inan mid ka midii waxa uu leeyahay filimadan daawada xunxun oo ku ibtilaysanay mid ka midina wuxuu leeyahay dumarkan jecelaha maxaan yeelaa waa ku ducaynaynaa horta in alla kaa daweeye xumaan kaa indhaha xaaraanta ku eegayana allaha ka daweeye qof kastoo xumaanta eegayana allaha ka daweeye qofka dumarka si xaaraana u jecelna allaha ka daweeye rag iyo dumarku way isjeclaan karaan laakiin dee waa labada isqaba ama isguursanaya haddii aanay gayaan iyo guur ahayn hablaha yaan lala xidhiidhin waa qofka bani aadamku waa daciif khuliqa insaanu daciifan buu ilaahay haddii shahwadii ay isku dhaqdhaqaajiyaan wiilkii iyo gabadhii oo ama filim uu daawado qofki ama wiilkii iyo gabadhii haasaawaan oo xaraaradii dee la geeyo boqolkoo la kiciyo oo la isku qarxo dee baa meesha ka laabanaysa dab iyo gaas waa la kala durkiyaa soo maha markaa shahwadda lama taataabto shahwadda iyo baahida jinsiga filimna ha eegin gabadhna ha la saaxiibin dhagaha xidho dhagaha iska xidha ilaa intuu ilaahay kuu sahlay inaad guursato nabigaa sidaa sheegayo wuxuu uhi yaa macshara shabaabina man istataaca minkum ulbaata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa dhalinyaradii soomi kara ha soomo kii kale kii guursan kara ha guursado dhaqaale helaya kii kalena ha soomo soomkaasi waxa wey hamadu ka jebinaya marka waxaanaynu arkayna ee sigiskii laga daawanay waa ceeb weyn waxaa laga yaabaa si aad sigiska weegayso inay labada indhoodba ku madoobaadaan way dhacday dadku indhabeelayba qalbigaa ku madoobaanaya hadda u fiirso wax kastaoo shareecadeennu ay kuu diiday xikmad baa ku jirta waxaa laga yaabaa dadka qaarkood bay hamadu kaga tagtayba oo siduu bahalkaa u daawanayo tii xalaashahayd markuu guursaday ayuu soo rogan waayey meelo garatay waxba way u dhaqaaqi waayey ilaa waxaan markaad wadee daawato cagtaadanoo kale kuu noqonaya cagtaada imika haddaad eegta ma dareen bay kuu leedahay wax dareena kuma leh mobilkanoo kale u noqday xubinkii taranka ee xaaskiisu dabeetana uu hamoonba waayeba wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa dhac waa xubinkoo caajis kaa galaaye marka dhalinyaro laba arrimoodba iska ilaaliya wiilal iyo gabdhaba biyaha taranka inaad iska sii daysaan balaayo af lagama dhowree iyo filimada inaad daawataan islaamku uu xaaraantineeyey labadaba filimada qaaqaawan iyo dariiqada waxaanay khatar ku yihiin markaad hadhow qof xalaala guursato ama xataa inaad guur u hamootaba qofkii hadduu dariiqooyinka noocaasa isticmaalo guurkaba uu iska nacaya aqal dhisi kari maayo ubad dhali kari maayo mustaqbal yeelan kari maayo wixiisii yaryaraa qurunka yarunbu ku walaaqaya hamadiisiiba waa kan gudan halkan uu ku dhammaystayba maxaa tu kale uga baahantii aqal la dhisay oo waxaa meelaan iska warwareeg dabeetana wuxuu noqonayaa doob aduu guun ama guun iska warwareegubuu noqonayaa qof marka waa dariiqooyinka lagu saaqiree waxaa ilaashataan qoodhnimada iyo gashaantinimada armay fahamteen doobnimada iyo gashaantinimada ninku waa inuu noqdaa doob iska urursan oo ishiisa iyo xubinkiisu urursan yihiin oo maalinta uu guursado dhimbiila ka duulaya armiyaan ahayn inantiina waa inay noqotaa inan cafiifada oo dhowrsoon oo gaashaaman oo habeenkan nin ay hesho dee iyaduna ka jibba keenaysa arrinku halkaa waa inuu gaadhaa waxay macno sameeyaan sida sharcigu yihi waa sidaa nin baa sacuudi arabiya ka yimi waktiyada kamid halkaasuu joogo sacuudigana dee iminka mooyaane intii hore hablaha lama arki jiray waa ogeydeen soomaa habluhu way qufulnaan jireen oo dee ninku raggunbay sarki jireen dabeetana wadankuu yimid oo garoonkuu ka soo degayoo isagoo sidaa ah weligiiba inan arag ayaa tagsigii u horeeyey ayaa inan la wada saaray dhinacay ku qabatay sida imika kutiiryahan iminkaynu ka warramayay dee xaraaradiisibaa kacdo biyii tarankaa ka yimid qofkaasi waxay sheegaysaa inuu fidradii caadiga ahayd ku sugan yihin marka waxaan leeyahay haybadda ha iska luminina sharafta ha iska luminina waxa qaadataan kaarhku nebi maxamed fidiyey wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam rasuulku man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna fakhidayhi adman lahu ljanna war yaa ii ballan qaadaya qofka inuu ilaashado afkiisa waxa ku jiro carabkiisa ah iyo xubinkiisa tarankoo labada bowda ku jira yaa ii ballan qaadaya inuu ilaaliyo anuguna kaarka jannadaan u ballan qaadaa oo aan u dhiibaa marka warrama taa ma ballan qaadna allahayna ilaaliyo waxaan ogahay ibtilo badan baa dhacday caruur yaryaroo inagoo magaalada joognaa waxaa saasaan u arkay habeen gidaar ku urursan
markaasaa waxay wada eegayaan mobile way kala yaaceen markayna arkeen war maxay eegayeen sigis bay eegayeen waa 8 jiro iyo 10 jiro iyo kuwa yara dugsi hoose macnaha galmadii bay eegayaan xaraan tahay mobile marka walaalayaal ama adeerayaal ama waxaan leeyahay dhowrsoonaada oo cifada ku dadaala sheekada waxa la yiraahdaa iska ilaaliya saaxiibka waxa la yiraahdaa iska ilaaliya wiilashu gaar bay saaxiib u yihiin habluhu gaar bay saaxiib u yihiin wiilashiina halka fadhiya Soomaalida ah hablaha halka idin la jooga marti bay yihiin magan bay yihiin waa hablihiin nin walba waxay ka dhigantay walaasha iyo inantaadi iyo inantiini bay ka dhigantay haddii aad xumayso ama laha sawdo oo si dariiqa xaraan aad kula xidhiidho ama xubad si qaadato inantiini iyo inantaada laga jacay arbata bisama inantiini adigoo xumaan ku sameeyo kala ka dhigantay habluhuna xishoodaano wiilasha dadka ay la xidhiidhayaan waa mid guur iyo calaf ay maagan yihiin laakiin qadiyada saaxiibka Ugandis baa lagu dayanaya